Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. هلع Somali TV subscribe please. السلام عليكم وإذن سلامة دمانتين وأنا هلع Somali TV saaxiibkeen hal abuur magacayga saxda dad badan aan aqoonin magacayga saxda waxaa la yiraahdaa Maxamed Salaad ama maxaan ku magac dheerahay Carab ma fahanteen hal abuur Soomaali asxaabta dhamaan waa idin salaamay waqti badan muuqaalo ma soo gelin waa iska mashquulay maanta codsi aan wataa wiilkan waxaa la yiraahdaa Dooni Dalka waa saaxiibkayga qaaliga ah waxa u baahanahay wiilkan in xataa kunka loo buuxiyo kunka xataa waa yar yahay 3,000 in la gaarsiiyo waa saaxiibkayga qaaliga ah waan idinku kalsoonahay muuqaalo waali oo soo geliya anoo soo laabtay muuqaalada xaggiyaan ka sii wadaaya inkastoo aan kala baadiyoona waa iska mashquulay YouTube kana cilado fara badan iga imaada inkastoo YouTube aan wax fiican ka helay intaan ku jiro YouTube aniga dadkii waayihii hore lafii hore ahay ma fahanteen hadda muuqaalan soo dhigay muuqaalkan waxaa idinka codsanayaa like fara badan inaad saartaan subscribe share meel walba gaarsiiya like faraha badan wuxuu iga saacidayaa muuqaalka inuu fido subscribe kana ku dadaalo channelkan Holac Somali TV waxaa rabaa inuu gaaro 50,000 sanadka cusub intasan la gaarin inta awoodaan bal subscribe isaara lacag ma ana aadan oo mahadsantiin love you all maalin wanaagsan hadee waa idin jecel dhamaantiin wiilkan muuqaalkiisa linkiga hoos aan soo dhigaa hoos ka fiiriyo insha Allah midda kale saaxiibkay wuxuu yiri YouTube inaan ka qadeeyaa rabaa ana inkastoo YouTube hore uga soo qadeey asagana ka qadeeyay asxaab like subscribe oo saara saaxiibkay marka waxaan iga codsanaa inaa aadin subscribe dhahdin YouTuber aan noqday waxaa rabo marka inaan qadeeyo khada iga maqan bis quraaci casho haysta khada iga maqan khadan waxa la YouTube leeyaala marka subscribe ka gari istaaska WhatsApp jay hadii kale walaa ay amal laftaan oo ku siinaa walaa tag subscribe YouTube tagta ku jeedo sheekadan waxay igu dhacday 2012kii waxa u soo guurnay guri cusub ana ka kooban 7 xubnood anaka iyo familkeena dhamaan meesha ugu la yaabka badan waxay tahay gurigan wuxuu ku yaala meel duura sidoo kale gudaha marka soo galnay aad baan u naxadnay sababtoo ah gurigan dhanba wuxuu ahaa guri qadiimi ah range xataa lama marin marka aniga waxaan go'aansaday inaan range aan marino anaka dhamaan familka xitaa albaabada waxaa ku xirnaa lock midda ugu la yaabka badan waxay tahay gurigan daaqado fara badan uu lahaa aniga waa la yaab guri noocaana muxuu ahaa oo daaqadaha badan sidoo kale qolkayga marka u socdo waa inaa jikada aan sii maraa taas waxa igu sii daran bowlalka iga weyniik aan qol la sheegareyn jiray macnaha qolka waa wada isticmaali jirnay habeenkii markii la gaaray 4 saacna walaalkay waa maandhac dhalo seexan jiray aniga laakiin saa u soo jeedo marka qaarkood waxyaalo qaar aan ku qaru jiray abaaro saacadu markii ku baagan tahay 9 saac bar habeenimo waa soo kacay macnaha suuliga rabeena aado kadib sarteedan ka soo kacay waa ogtiin gurigan daaqadiisa aad u fara badan daaqad walba marka ag maraayo waa fiirinaya banaanka waxa ka jiro meesha ugu la yaabka badan waxay ahayd marka soo gaaray dhinaca suuliga albaabka oo banaanka waxa ka arkabo nin waayeela oo timo saqle timihiisana hadda aragtay ayaa soo garka ku baxeeno aad i fiir ormaandho dhalam maxay iga fiirnaysaa aniga fulay xar weyn baa ahaa isla markaa waa soo cararay dhinaca kursiga isku qariyay ninkan wuxuu iga soo fiirinayay dhinaca albaabka maraa damca walaalkay inaan kiciyo haddana waxa ay siri kan waa maandho dhalatimaa jaalaha leh telefoon uu haystay markii dambe waxaan go'aansaday inaan soo guurguurto qolka aabeeya aado way aabee wax ay dhaamo ma lahan isaga wax walba iga filan walaalkay mararka qaarkiis way dhibaa meesha ugu la yaabka badan waxay tahay ninkan wuxuu haystay masterkii macnaha furo dheeraad oo haysto albaabkan ku furo waa marka nolosheeda ugu horeysa aan qalad aan galno shit aan eray isla markaa ninka albaabka ayar uu soo furo war wax meeshan degnaa dhamaantood waa wada laynaya aad u qeylina ana cilki ahay waxaan iyo garka weyn sayeelnaaniyo tuuga
around 6. midda ugu daran waxay ahayd jaakad xun oo wasaq badan oo xirnaa saasay tahay isla markuu soo galay qaylo bilaabay ruux meeshan degna aawe wuxuu bilaabay inuu dhinaca jikada aado wuxuu soo qaatay bac oo chipsi ku jiro isla markaa wuxuu galay basement waxaa waa meesha hoose oo store oo kale cuntada iyo raashinka la dhigto meeshiuna gala aniga waxaa isra ninkan hadda meesha aan ku socotid uu ku dareema macnaha uu maqlaaya socodkaada isla markaa waxaan soo qaatay mara yaroo walaashay ilahayd oo kursiga saarnaa maradii damca inaan soo qaado aan ku socdo waa markaas ma dareemi karta u socdo warmaando aan ima yaqaane aqoon ay ugu dhimanaysa ugu socdo marada ilaa ma maqlaay moqta albaabkan ku xira oo basement macnaha meesha raashinka la dhiganayay nala warika ku yaal maandho dhalay wariya albaabka maxay igu xiraysaa ninkii soo ordaa waa kana kabiisa la maqlaay wariya waxa balanaygu inaan ku dilo meela galay si qod albaabka go aniga inta soo carray dhinaca kushinkas aaday mindi weynaan soo qaatay bakac maandho dhalay maxay igu jeeftaa nina ku jiro dhinaca storka alaabta dhigana dhaqso warkeen mindida waxay ku dhalacoonay aniga ma waxaasa ii kicinaysa aabeena military u ahaa isla markii mindidii ula soo orday yaa ku jira guriga soo bax waxaa ka heshiinaa leedin hooyadeena isla markii booliisi waa nala soo weeraray booliis oo naga soo gaaray sidoo kale walaashay iga yaraa qol ku xirneed kamana gaarin isla markii soo gaarna oo meesha storka ninkii waa kana uu soo furay albaabka uriyaa aniga albaabka igu xiraysa sooma wariya wiilkayga ma gumaysana warkaalaada xataa waxa iga qaadaysa malahay isla markii wuxuu yiri waa ku dilayaa odayo warmaando aan muxuu jarka weyn jarka wasaqda isla markii aniga waa hanaaqay mindi aan soo qaatay abaa waa la dilaa isla anigana fulay xaar weyn mindidii aan la jareynay warkeen mindida maandooyo timaa dhuxushala fulayga oo maanigaasa ileed adoo tima jaalale without missing a beat. He let out a strangled cry, giving my dad the chance to overpower him. My dad flipped him over, pinning him face down with his arms locked behind his back. isla markaa booliiskiyaa soo galeen guriga ninkan waxaa niray ninkan tuugu ahaa wuuna soo weeraray wariya kaale guriga islaamiyada soo galaysa miya walaasha iga weyn ay aamusinaysay kuwaana adeerayaashayaa dhalay isla markaa waxay ugu leedahay walaasha iska aamuso xolba adduunkan way ka dhacaan anigoo yaabano isla xaaladda intii ku dambeysay ninkii tuuga horta uu badbaaday kadib waxaa lagu xukumay dil toogasha oo kasoo noqosha aan lahayn laakiin waa qis xanuun badan oo igu dhacday ka waran bal maalintaas haddaan ahee kursiga isku qarinlan saacaddan waa dhiman lahaa waa ninkaas waana qisa xanuun badan oo igu dhacday asxaabe layka saaran kumaadsantidaawshideena layk fara badan saara soo muuqaalka meel dheer u gaaro hooyaday maalintaas mindida waxay iga celisay waxay ahayd dambigaa dusheena saartay diidaysa ayadaa qaabishay dambiga hooyo walba adduunkan saaran waxaan dhihi lahaa aadaa u mahadsantiin waa idin jecel dhammaantiin laagisa